xisbiga daryeelka iyo cadaaladda ee UCID oo maanta Jimcaha furay wareegii saddexaad ee ololaha doorashada Somaliland ayaa maanta gabi ahaanba bedelay isku soo bixi iyo dabaaldegii fagaarayaasha magaalada Burco isagoo maanta ku bedelay dabaaldegiisii taakuleen iyo taageerid uu u muujiyay bulshada inteeda jilicsan isagoo deeq xoolo nool ah ku wareejiyay jeelka weyn ee Burco dhakhtarka dhimirka iyo xarunta agoomaha ee magaalada Burco gudoomiyaha xisbiga UCID ee gobolka Togdheer Saad Cabdi Boos iyo mas'uuliyiinta xisbiga ee gobolka oo deeqdani wareejiyay ayaa warbaahinta la hadlay iyo olole waxtar leh oo bulshada waxtar u leh oo dadka jilicsan waxtar u leh ayaanu saaka go'aansanay inaan sameeyno halkii aanu ka sameyn lahayn buuq fara badan iyo sawaxan fara badan oo ay ka dhacdo macsi fara badan waxaanu saaka sameynay inaanu xoolo nool ku wareejino meelaha ay dadka jilicsan ku nool yihiin saldhigyada jeelka magaalada Burco jeelasha cisbitaalka weyn cisbitaalka Maandeeye maalinta Jimcaha oo maanta inaanu ku bedelay ololihii durbaanka iyo hadii alaba ku rooyahay kicinta dadka inaanu ku bedelay anagoo tixgelinayna maalinta ciid Jimcaha inaan dadka aanay cibaadadooda lagaga mashquulin qaylo iyo durbaan aad ka ugu diirsanay ee wax la taaban karo oo lagu himilo qaadan karo tusay xisbiyada kale waxaanuna sidaa u yeelay insha Allah in hawsha badan caawa magaalada ka socotay ee dhibta badan ku haysa dadkeena bal aanu wax ka bedelo anagu tuminaana ma aanu samayn lahayn wax dhibaato ah inaan anagu dadka waxaan idin ku bedelo inaanu taakulayno arigana nimka idinka gudoomay waxa lagu wareejinayaa loo qalaya waa maxaabiis aad bay ugu baahan yihiin runtii in gacan la siiyo qaar kamida mas'uuliyiinta goobahan ay gaarsiiyeen deeqdan ayaa ka mahad celiyay xisbiga UCID kaalmadan sadaqada ah ee uu soo gaarsiiyay wax la taro waxaan leenahay ilaahay halkii aad ka soo saarteen horta marka hore lacagta ayada ee loogu talagalay durbaanka iyo maxay tooy buuqa ee xaqan u leexiseen ilaahay khayrkeeda haydi siiyo xisbiga UCID faylaal xamdu waxay deeq xoolaha soo gaarsiiyeen custaalka taasoo ay uga jeedaan maxay tahay maalintooda ololaha ay u bedesheen Maxbuub Xuseen Dalmar shabakada caalamiga ee Dalmar News gudaha magaalada Burco.